Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada barnaamijkeenii dhaqanka iyo suugaanta. Barnaamijkeenii maanta waxaan kusoo qaadanaynaa aas-aaska qoyska. Bulshada ama mujtamaca Soomaaliyeed waxa uu ka kooban yahay qabaa'il fara badan. Qabiil walbana waxa uu ka kooban yahay dhowr beelood ama dhowr qolo. Beel walbana waxa ay ka kooban tahay dhowr reer. Reer walbana waxa ay ka kooban yihiin dhowr jilib ama jufo ama laf. Laf walbana waxa ay ka kooban tahay dhowr qoys ayay ka kooban tahay. Sidaas darteeda aas-aaska bulshada waa qoyska. Qoysasku markii ay bataan magaca ay qaadanayaan wuxuu noqonayaa jilib ayaa la dhihi doonaa ama jufo ama laf. Markii dhowr jufo ay noqdaan oo ay bataan magaca ay qaadanayaan waa reer ayaa la dhihi doonaa. Reeruhu markii ay bataan waxay noqonayaan beel ama qolo. Beeluhu markii ay bataan oo dhowr beelood ay noqdaan magaca ay qaadanayaan waa tol ama qabiil. Qabiilku markii uu bato ayaa wuxuu sameynayaa mujtamac iyo bulsho ayuu sameynayaa. Qofku qabiilka wuxuu ugu nisbo sheegan karaa laba midkood. In ay dhiig wadaagaan waa waxa loo yaqaano dhiig ama tagoog. Ama in uu qofka qabiilka uu ku biiro waxayna Soomaalida u taqaan dhaqan ama tolow. Qabiilku qaanuunku uu ku dhaqmo waxa uu ka kooban yahay dhaqamo iyo caadooyin waxayna Soomaalidu u taqaanaa xeer. Hoggaanka qabiilka wuxuu isugu jiraa salaadiin iyo culamaa u diin. Qabiilku wuxuu leeyahay hoggaamiye. Hoggaamiyahaasna magacyo kala duwan ayaa looga yaqaanaa gobolada Soomaaliya. Magacyadaas waxaa ka mid ah suldaan, ugaas, wabar, islaan, islaaw, boqor, garaad, malaaq, imaam, beeldaaje iyo magacyo kale aad u fara badan. Qoyska waxaa aas-aas u ah guurka. Qoyska wuxuu noqon karaa qoys ka kooban aabe, hooyo iyo carruurtooda. Ama wuxuu noqon karaa qoys intaa ka ballaaran oo ay ka mid yihiin qaraabada dhanka aabaha iyo dhanka hooyada. Sidaas darteed qoysaska Soomaaliyeed waa qoysas aad u ballaaran waxaana ka mid ah qaraabada dhanka aabaha iyo dhanka hooyada. Qoysku wuxuu wadaagaa laba shay oo ah dhab iyo dheri ama hooy iyo weel ama gogol iyo gasiin. Sidaad u tiraahdaba waa isku mid. La soco fiidiyowga xiga waxaan kaga hadli doonaa mowduuc aad iyo aad u xiiso badan waana sidee loo dhisaa qoys Soomaaliyeed. Haddii uu Ilaahay idmo. Fadlan haddii aad channelkan ku cusub tahay, subscribe saar, gambaleelkana daaro si fiidiyowyada cusub aad u hesho. Haddii fiidiyowgan uu ku cajib geliyayna, like saar, share garayna.